intee rajo ka qabtaa inay ciidamada gumaysigu dalka Soomaaliya ka baxaan runtii waxay la tahay horta ma rajada aan ka qabaahay muxuu ahaayey waa half a half maxaa jira gumaysigu hadda bareeray u qabsadeen dalka way kusoo duuleen halfka marka yani inaan half qabo waxa keenaya wixii shal ku fikrayeen maanta ma jiraan dalka Soomaaliya oo ay qabsadeen oo intay ku qabsadeen la og yahay oo xuduud ay lahaayeen la og yahay yani kaartada ay ku qabsadeen la og yahay ujeedada ay lahaayeen maanta meelaha aan tilmaamay ka joogaan saas arrintaasna waxay ku timid yani dagaalkii yani shacbiga Soomaaliyeed ay dagaalameen hadda dagaalkuna waa soo xoogaabaya yani intaan xogogaal u ahay dagaalku sida uu ku bilowday ilaa koritaan uu wadaa yani shacbiga Soomaaliyeed dagaalku waa sii koraya marka anigu waxaan isleeyahay dan uguma jirto ayaga yani inay sii joogaan yani dan uma aha maxaa jira de muxuu ahaayey dhibka uma kusii badanaya marka dhinacaas u eegto yani waxaa ku quman inay iska baxaan oo ay dalkoodii aadaan dhinaca kalena haddee ujeeday lahaayeen oo ujeedadoodii meel ay ku dhammaanayso yani aniga ma sheegi karo meesha ujeedadeedu ku dhammaanayso laakiin waxaan ogahay inay og yihiin dalka in dad leeyahay yani dalkan waxaa loogu talagalay muddo 18 sana waxaa loo abuuray muxuu ahaayey dad aan wadaniyad iyo damiir iyo diin midna aan lahayn muxuu ahaayey nin walba isbaaraa la yidhi meel dhigo nin walba waxaa la yidhi meel madaxweyne ka noqo nin walba waxaa la yidhi meel adigu xukun nin walba waxaa la yidhi anaga ku kaalmaynayno wax ku siinayno adiga wax kaa dhigayna hebel iska celi yani marka waa burburay dalka waxaa loogu talagalay dal marka ay u dhammaatay oo aan muxuu ahaayey rajo dambe lahayn yani inuu isdaafaco ama uu dagaalamo ama muxuu ahaayey ka hor yimaado yani cadowga awooddiisu intaa leeg tahay marka taasi waa beenowday way og yihiin yani maanta ma taqaanahay dadka waxay ku yiraahaan qolyaha iyaga la jooga waxay ku yiraahaan adinku dalka ma lihidin dalka waxaa leh nimanka nala dagaalama maxaa jira iyaga laftoodu niman dalkooda jecel weeye marka in dalkiisa jeclaado yani ma biciidsan karaan mudan Cumar Xaashi ma noqon karaysaa hadda markay amxaaradu baxdo in beerihii loo kala qaybsano oo dib lagu noqdo dagaalka sokeeye dadka waxay yiraahaan islaanta ilmuhu ka saqiiraan canuga dhasho inuu ka saqiirahay moodaa marka arrintaad sheegayso 18 sano kusoo jirnay marka waa arrin laga يعني laga shaki karo way oo runtii hadde Soomaali waa Soomaali oo dad kale hadda cusub oo ma jiraan laakiin anigu markaan ku xisaabtamo way aragnimada aanu leeyahay ma taqaanahay wixii la soo maray iyo xaaladda hadda jirta iyo markaan qiimeeyo waxaan is leeyahay sidii waa ka duwan tahay xoogow yani way ka duwan tahay maxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay waxa weeye markii hore qabiil la kala waxa weeye ciidamada hadda dagaalamaya oo muqaawamada ah qabiil ma nin ciidan nin ciidan qabiil meel ku haysta ma jiro tusaale waxaan kaaga soo qaadi karaa aniga hadda gudahan ka imid ciidan ay ilaaliya oo staffka ay ilaaliya ilaa hal koox ah ay la joogto kooxdaas hubka ay haysato iyo ayada lafteeda waa Soomaaliya oo dhan way yani hubka aniga aan haysto intiisa badan waxay siiyay rag aan shala dirirayn rag aan col ahayn oo dirirayn ayaa isiiyay markaan gudaha tagay in lagu ilaaliyo hubkan ciidanka aniga ilaaliya oo waardiyaha iga ahna yani beelihii Soomaaliyeed oo culoobi jiray oo dhan uu ka kooban yahay yani isabiya taasa kaaga filan yani marka ma aha yani sidii wax ahaa jireen arrintu ma aha marka waxaan rajo weyn ka qabaa waa taas weeye waxaa la sameeyey nidaam iyo dastuur wax lagu wada qaybsado xaq iyo sabursi ku noqdaba loo baxshayna 4.5 idinku marka maxaa hadday ka baxdo dad kiiba ku soo celinaysa mise dib u fiirinaysa wallahi aniga 4.5 markii la sameeyay waa joogay laakiin waxaan u arkaa 4.5 waxay qayb ka tahay waxyaalaha loogu talagalay shacbiga Soomaaliyeed midnimadiisa iyo qarannimadiisa lagu baabi'iyo marka anaga bataatanba 4.5 ka soo horjeednaa ma aqbalayno shacbiga Soomaaliyeedna ma aqbali doono وشرقولكي جميسي كم تقريب كم دواي أنت الصومالية لقيبي ولقوا إني إسكو إيمان يعني مرن فود اللي إسكول تشيلو أنا قاعد كان لا مدن عمر حاج ما رنكر صدح عرسي هي الصومالية كداعي ومدو يهمي كمريكان كعرسان هي سجاشنيو صدح لي أكتوبر منا ويهي أمحارو أو عبدي تاريخي يعني ربط مارت إني مرة اللي قدرت الصومال يومي جفيد وعبد الله يوسف والله أنا هراي عن وشيء جاي هاي مرة أي ورق لي ورست أيام واحد حمر سدح كوحود أقبسطي
marka waxaan idhi saddexda kooxood laba kooxood aniga waa aqaanaa waxa ay ujeedadooda waa garanayaa saddex kooxood laakiin hal kooxa ma aqaan aniga waxay ujeedaan waxa weeye kooxda Milisanaawi waa aqaanaa iyo inay Soomaali ka aarsadaan ay rabaan dalkan inay qabsadaan ay rabaan kooxda Cabdullaahi Yuusufna waa aqaano dagaaladii sokeeyuu rabaa Cabdullaahi iyo wixii la aragtay inay ka aarsadaan oo madaxweyne Soomaaliyeed Cabdullaahi ma u shaqeynaayo madaxweyne Soomaaliyeed inuu yahay ma u fikray laakiin anigu waxaan garanaynaa in kooxda Cali Maxamed Geedi waxay rabaan anigu damiirkaygu ima sii karo inaan intaan amxaara soo kaxeeyo aan ku fasaxo dad shacab oo Soomaaliyeed oo aan ilaaho kilometer hebel ilaa kilometer hebel dadku ku jihal la duqeeyo muxuu ahay madafiic lagu garaaco iyo BM hal la dhaco يعني marka wax qeyr caadi waay wax yani damiirka bini'aadamku uu qaada kara ma aha yani amxaaran soo watay ciidamana waa ii soo tababartay dabeedna dadka hala laayaan iri yani hadda waa arsi waa ka badan tahay cumar xashi aadano oo mas'uulka arrimaha gudaha isbahaysiga dowladda Soomaaliya shabaab wuxuu yahay masala kulanta ma fiicna runtii in la qaybsamo wax fiican ma in magacyo la kala baxana wax fiican ma yani islaamku in la qaybsamo ma ogola islaamku in la qaybsamo ma ogola islaamku waa mid weey waa inuu mid ahaada waa inuu imaam kaliya lahaada waxa hadda yani magacyada kala lahooda aad hadda soo hadal qaadayna wax weey waa maxkamadii islaamiga ah dadna maxkamadii islaamiga ay wali ku taagan yihiin oo waa dadka yani leadership koodi waa kan isbahaysiga muxuu ahay madaxda waa muxuu ahay qolyo kalena waa jiraan qolada shabaab sheegatay waa jiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa in la isku raaco ayaan rajaynaynaa marka tafaasiil weyn aniga shabaabka aan bixin karo nin shabaab oo aan arkayna oo aan muxuu ahay aan waqti isku helnayna ma jiro niman dhalinyaro waa arkay aniga oo muxuu ahay leeyahay yiri waa shabaab oo ciidana waa arkay laakiin wax madaxa oo hoggaan shabaab oo ah aniga ma arag marka laakiin maxay rabaan iyo maxay ujeedadoodu tahay iyo maxay xagee u socdaan iyo yani cid aan kala xaajoodo kala sheekaysto oo shabaab ah oo muxuu ahay mas'uul hoon arkay ma jirto يا مدوري